Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan la qaatay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida militariga, booliiska, asluubta iyo nabad sugidda. waxaana ra'iisul wasaaruhu taliyayaashaasi uu la kulmay oo kala hadlay arrimaha sugidda amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed loona foojignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyayaashaasi uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan. kulankaas waxaa ra'iisul wasaaraha kala qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Muudey. kulankaasi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waxaa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha ku-meel gaarka ee cusub nabad sugidda Soomaaliya Jenaraal Bashiir Goobe. waxaana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi u dardargelin lahaa hawsha loo xil saaray uguna soo bixi lahaa si ay mas'uuliyadda ku jirto. waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu la kulmay taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir. waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyay uu siiyey xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardargeliyaan baaritaanka kiiskii Ikraan Tahliil. sidoo kalena hay-adaha amniga waxa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasta oo ay ka doonayaan in ay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen.